السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا ورئيسيغان غاركا وانو لا يلانينو مدحوينها جمهورية فدرالكا سوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماجو مدني مدحوينه وكم حسنتا وقتيغا كسو دو تلفزيونka qaranka ee Radio Muqdisho su'aasheeda koowaad waxay tahay mudane madaxweyne muddo hal sano iyo bar ku dhow ayaad dalka hogaaminaysaa oo aad madaxweyne ka tahay marka aad qiimeyn ku samayso xaaladda wadanka ee guud ahaaneed iyo waxyaabihii qabsoomay maxaad ku tilmaami lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa kaaga mahad celinayaa waraysigan iyo guud ahaan SMTV dadka dhageysta ama dadka fiirsada su'aashaadu waa su'aal wanaagsan xaqiiqatan waa hal sano iyo 4 bilood wixii noo qabsoomay waxaan aaminsanahay inay yihiin wax la taaban karo waxaas ugu horeeya waqtigii aan campaign ku jiray oo electionka waxyaabaha aan ballan qaaday waxa koow ka ahaa inaan bedelno dhaqan siyaasadeedka dalka ka jira dhaqanka siyaasadda inaan bedelno ay ugu horeyso qofka leaderka ah ama madaxweynaha dalka inuu noqdo qof lagu dayan karo bacdama uu yahay astaantii qaranka waxa ugu horeeya madaxweynaha inaan lagu tilmaamin qabiil inaan lagu tilmaamin inaan koox lagu tilmaamin uu noqdo qof ummadda u dhaxeeya oo runtii tusaale ama calaamad wanaagsan u ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaan runtii taasna wax badan yaan ka sameynay oo runtii annaga nooguma tilmaamo xafiiskayga iyo dadka ila shaqeeya inay koox ka tirsan yihiin ama qabiil gaar ah ay yihiin runtiina waa waxyaabaha dalka burburiyey markii madaxda loo asteeyo ama lagu shaabadayo inay qabiil matalan ama qabiil u fadhiyaan meesha in dadkii kale ay ka arkaan inuu yahay madaxweyne ama qof hogaamiye ah aan dadka u dhaxayn tan labaad runtii musuqmaasuqa waa wax meesha ku jira oo hareeyay dhaqanka siyaasadda ee dalka marka madaxweyne ahaan waxaa la rabaa qofkaasi xafiiskiisa oo dhan inuu hufan yahay oo indhaba ha yaraatee aanan marnaba aan lagu tilmaamin xafiis musuqmaasuq ku shaqeeya ama ku shaqeeya inuu noqon waxaan aaminsanahay isku amaani maayo laakiin xafiiskayga waa ka tilmaaman yahay arintaas aad iyo aad ugu tilmaaman yahay waana ku amaanaya runtii dadka ila shaqeeya oo ay tahay wax hogaanka laga arkay oo aniga laga arkay tan saddexaad in aan soo celino sumcaddii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed oo inaba ha yaraatee wax kasta aan sameynayno aan ka fiirnayno wanaaga iyo danta guud ee dalka aan ka fiirino ayaan ka fiirin dan gaar ah ayaan ka fiirinin macnaheedu waxay tahay markaan caalamka la macaamilno ama aan la dhaqmayno inaan ula dhaqanno dad siman ama dawlado siman ama madax siman inaan ula dhaqanno oo aanan hoos naloo fiirin waxaan aaminsanahay iyada naftigeeda halkii sano iyo 4 bilood aan jirnay nalaguma tilmaami karo inaan dawlad hoos fadhino ama dawlad gaar ah aan amar ka qaadano waxaan aaminsanahay inaan ummadda Soomaaliyeed aan midalno dal aan midalno taasna aan keenno sharafkeeda iyo sumcaddeeda dalalkaasi dana naga leeyihiin annagana danaan leenahay inay danahaas noqdaan dana isu adeegaya aysan noqon mid hal dhinac kaliya u janjeerta aysan noqon saddexdaas arrimood yaa bays u ah wixii intaas ku xiga waxa weeye marka loo fiiriyo siyaasaddeena dibadda sida aan nahay hadda meeshaan adduunka aan ka joogno iyo sumcadda aan leenahay runtii waxaan aaminsanahay mana isku amaanayno in aan keennay dawladdeedu ay keentay ra'iisul wasaarahayga uu keenay wasiiradiisu ay keeneen magac wanaagsan oo runtii haddii awal mar ugu yaqaanay dad hooseeya oo liita in nalaga sheekeeyo oo Soomaaliya qabkeedii iyo sharafkeedii iyo sumcaddeedii aan kor u soo yara qaadnay weli meeshii aan rabnay ma joogno oo runtii dalku 30 sano ku dhawaad wuxuu ku jiray dhibaatooyin fara badan arinta labaad arinta dhaqaalaha markaan ka taabto waxaan ku guuleysanay intii aan joognay waliba bishii aniga iga horeysay oo January ahayd inaan bixino mushahaaradii si joogto ah aan u bixino oo dadka shaqaalaha dawladda u shaqeeya ay helaan mushahaaradooda ay xaq u lahaayeen insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno waxaa intaas soo hartay World Bank iyo IMF sida ay noo arkaan inaan kor u qaadnay sumcaddii
iyo aaminkii caalamku naga qabay dhanka maaliyadda taas macnaheedu way tahay inaan nalagu tilmaamo inaan nahay dad hufan dowlad hufan in nalagu tilmaamo transparency inaan nahay oo waxa alla waxaan sameynayno ay caddahay inaan waxba aynan qaranaynin waxay keentay in laga hadlo hadda deemankii Soomaaliya lagu lahaa in loo dhaafo waxaa laga hadlayaa hadda in macaawin la siiyo ama grant la siiyo oo European Union kana siiyaan World Bank naftigiisu ay siiyaan oo laga hadlayo boqolaal milyan oo dollar laga hadlayo waxaas oo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay habka dhaqaalaha aan u maareyno aan u maamulno runtiina waxa iska leh creditkeeda ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa maaliyadda oo runtii SMP-da staff monitoring programka standardkii la rabay gaarsiiyey oo muujiyey annagu inaan nahay dad hufan oo inaba ha yaraatee laalaab iyo wax aanan la garanaynin maaragtay ka shaqeeya aynan inoo arkaan taasna iyada naftigeeda waxay keentay caalamka guud ahaan inay isku dayayaan oo European Unionka ka mid ah inay hadda soo wadaan dhaqaale kale oo lagu fulinayo hawlaha adeeg bulshada kadib markii World Bank iyo IMF ku labaduba ay qireen in dowladdan ay hufan tahay arrimaha maxaan ku raahdaa amniga iyada naftigeeda oo runtii aan ku guuleysanay bisha hadda ugu dambeysay markaan ka soo qaaday waxaa la yiraahdaa meet yaa u dambeeyay waa kii la sii waday way hadda bisha hadda la soo dhaafay oo runtii noqotay 10 sano bishii ugu horeysay Ramadaan oo uusan qarax dhicin ma aha wax accident ah waa runtii waa hawl aad looga shaqeeyay iyo qorshe la dejiyay oo aan ku ammaanayo ciidamadeena amniga oo runtii si hufan oo wanaagsan oo karti badan u shaqeeyay oo habeenii maalin u soo jeeday sidii ay u difaaci lahaayeen shacabkooda qolooyinkan horarka ah oo dhibaatada maalin walba ku haya ummadda Soomaaliyeed runtii hor istaagan waa ku amaanan yihiin waa xaqiiqa dhibaatooyin waa iska jiri karaan caqabado waa iska imaan karaan culaysyo waa jiri karaan oo socodka magaalada shacabku naftigooda waa dulqaateen waa ku mahadsan yihiin inay gacmo buuxda siiyaan oo la shaqeeyaan ciidamada amniga ayna u dulqaataan culeysyadaas faraha badan oo safaradooda iyo haddii qof shaqo aadi lahaa iyo qof maxaan ku raahdaa iskuul aadi lahaa u daaho wax kalena ma aha waxaan ka taxadiraynaa oo aan ka shaqeynaynaa oo aan ku dadaalaynaa sidii usan qaraxyo iyo dhibaato weyn isu dhicin oo dad badan ay ku laacdaan oo hooyadii gurigeeda ka soo baxdo ilmaheeda u shaqo tagaysa ama ilmihii soo baxa oo iskuul aaday ama aabihii ilmihiisa u shaqo tagaya gurigiisa uu guryahooda ugu noqdaan si nabad ah waa dhab weeye oo waxaa laga yaabaa saacado inay jidka ku jiraan waxaase ka muhiimsan ilaah baa nafta haya inaan taxadarno oo dhiigaasi bilaa macnaha qolooyinka nabadiidka ah qaraxyadan ay ku sameynayaan in laga hortago waayahay mudane madaxweyne dhinaca dib u heshiisiinta haddii aan usoo noqono iyo dadka in la isu raadiyo oo la isu dumo maxaa iyada ka hirgalay iyo sidoo kale haddaan raacsado su-aal kale oo ah dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta infrastructure-ka dalka in la dhiso oo wax lagu soo kordhiyo xaqiiqatan arrimaha dib u heshiisiinta wax badan yaan aaminsanahay inaan ka qabanay wax badan waa noo harsan yihiin waxa ugu dambeeyey arrimihii gaalkacyo kale labada dhinac waqooyi iyo koonfurta gaalkacyo oo runtii intii aan u dirnay mas-uuliyiinta aan dhexgeynay oo aan u abaabulnay guddi ay qayb ka yihiin salaadiinta iyo dadka mas-uuliyiinta ah oo labada dhinac ah inaba ha yaraat hadda inaysan dhibaato dhicin muddo adigu 6 bilood 7 bilooda aysan dhib dhicin waxaa laga hadlay berdhaweed inay jiraan 2 jid oo muhiim ah oo isku xiri doona Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Jowhar goorma ayaa aad u sheegi kartaa madaxweyne inay arintaas dhaqangal noqonayso oo aan filanayna in howlaha arintaas la xiriira ay bilowdaan ama jidadkii la dhiso oo dadku ay ku socdaan oo isticmaalaan jidadkaas waa dhab iyo jidad badanba waxaa ku socda design yaa ku socda designkii waa dhow yahay
waa jidka xamar iyo jowhar oo aan filayno inuu noqdo jid highway ah oo laba jowhar iyo laba ka soo noqdo jowhar agagaarkaas jidka la sameynayana aan adeeggeeno oo adeegii ay u baahnaayeen sidaasoo kale xamar ilaa afgooye iyada naftigeeda qorshaha iyo noogu jirtaa ilaa marka hadduu eebbe yiraahdo marka waxaa intaas soo haray magaalada muqdisho naftigeeda tiyaatarkii waxaan rabnaa inaan dib u soo celinno si fankii iyo suugaantii loo helo hooy ummadda soomaaliyeed ay dib ugu soo noqdaan isbartiibooyinkii sidaasoo kale iyaga naftigooda waxaan qorsheynaynaa sanadkan dhexdiisa inaan furno isbartiibooyinkii waaweynaa sida stadium muqdisho hadduu eebbe yiraahdo mudane madaxweyne haddii aan intaas uga gudbo dhowaantan waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo oo ka dhacay shirkii amniga iyo khayraad wadaagga oo dowladda dhexe oo aad adigu hogaaminayso iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalkuba ay goobjoog ahaayeen shirkaas waxaa ka soo baxay qodobo badan oo masiiri ah runtii oo ay ka mid yihiin wadaagga khayraadka waddanka dhammaystirka dastuurka iyo arrinta la xiriirta doorashooyin in dalka ay ka dhacaan 2020 haddii aad fiirisid qiime intee la eg ama macno intee la eg ayuu ugu fadhiyaa dadka soomaaliyeed shirkaas isaga ah waxa ka soo baxay sideese dhaqangal ku noqon karaan aragtidaada shirkaasi runtii wuxuu ahaa shir tilmaaman oo shir aad iyo aad u weyn ayuu ahaa maxaa yeelay waa saa sheegtayoo waxaan uga hadlaynay masiirkii dalka madaxweynayaashii meesha aan isugu nimidna runtii waxay muujiyeen xilkasnimo iyo mas-uuliyad iyo leadership ayay muujiyeen inkastoo muddo ay nagu qaadatay oo habeeno badan aan usoo jeednay inaan isku fahmno hawshaan waxay ahayd hawl horey in loo soo qabtay ahayd haddana taagan haddaanan annaga qabanna kuwa naga dambeeya aan u gudbinayno colayskeeda marka loo baahan yahay hadda inaan dhammaystirno si dadka naga dambeeya ay hawsha ugu sahlnaato taasna waa mas-uuliyadda hadda aan leenahay waxaan ka hadalnay in kulligeen aynan wada joogi doonin oo dee qof walba waktigiisa usan dhaafinin laakiin taariikhda ay noo gelayso inaan sameyno collective maxaa la yihahdaa responsibility aan sameyno oo aan wada qaadano mas-uuliyad wadareed aan wada qaadano oo hadday noqoto arrimaha electionka dalka kaas oo noqon doona mid hal mar keliya wax lagu gaaray uu noqon doono wax runtii ay naga dhaxlaan jiilka soo socda iyo mustaqbalka oo dee nalagu magacaabo la yidhaahdo maalintaas yaa habka qaabka electionka loo sameynayo iyadoosan qofna gaara aysan maslaxad u ahayn oo aan ka fiirinayno danta guud iyo maslaxadda guud waxaa sameeyey oo ka shaqeeyey electionkan modelkan qaabka electionka waxaa ka shaqeeyey madaxdaasa ka shaqeysa oo aan taariikhda ku galno sidaasoo kale khayraadka in la qaybsado oo la wadaago oo labadaas arrimoodba ay ku xiran yihiin dhammaystirka dastuurka qabyada ah ay ku xiran yihiin runtiina waa uga mahad celinayaa madaxda dowlad goboleedyada iyo prime ministerka ra-iisul wasaaraha sida gaarka ah aan isaga xil saarnay hawshaan na sugaysa kulligeen inaan aan hadda oo hal sano iyo 4 bilood annagoo joogna aan ku baraarugnay maxaa yeelay haddii aan dib u dhigan lahayn ama aan dib u dhiganno waxaa imaanaysaa dastuurka dhammaystirkiisii qabyada ah inuu dib u dhaco waxaa imaanaysa electionkii naftigiisii in laga hadlo qaab ku dhici lahaa oo marka waktigeeda la gaaro dowlado shisheeye ee gacmaha iyo ajnabi iyo beesha caalamka gacmaha nala soo galaan oo mas-uuliyaddii annaga naloo xil saaray oo naloo idmaday ummado kale ay masiirkaasi qayb ka noqdaan marka runtii waxay ahayd horumar iyo guul kulligeen noo soo wada hoyatay madaxweyne intii aan shir ku bilaaban waxaa jiray hadallo la isku taagtaagayay iyo kala aragti duwanaansho hogaamiyaasha ama madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ay dowladda dhexe dhaliilo usoo jeedinayeen shir xataa waxaa jiray ka horreeyey oo iyagu ay ku qabsadeen baydhabo oo aan dowladda dhexe matalaad xoogan ku lahayn ama aysan ka qayb gelin khilaafaadkaas bannaanka usoo baxay oo mar ay dadku u arkayeen inay wiiqi karaan geedi socodka dowladnimada ama ay sidee uga siraad korteen oo ay idinkugu suurto gashay inaad ku xalisaan
masala la dhameeyay oo hadda waxaad na dhihi kartaa waa dhamaaday khilaafkaas waxa weeye waxyaabaha naloo doortay yaa waxay tahay inaan dadka siino hoggaan wanaagsan good leadership good leadershipku ma aha wax aniga gaar ahaan ii saaran mas-uuliyiintaasna iyaga naftigoodu qaybtooda leeyihiin marka in aan maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danta guud aan ka hormarino wax walba yaan istusnay taasaana runtii keentay in aan iyadoo aan dad badan filaynin inaan ka hormarino maslaxadda shacabka iyo danta guud waxyaabaha yararka ah oo laga yaabo in lagu kala aragto duwan yahay waayahay dhowaan mudan madaxweyne ama toddobaadkanba waxaad dalka yimid oo muqdisho soo booqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka jawaabay casuumaad nolol sheegay inaad adigu markii hore u fidisay waad isku shiraad halkan ku yaalateen dhowr saacadood qaatay kadibna waxa ka soo baxay communique ama bayaan ay ku qornaayeen inaad isla afgarateen arrimo dhowr ah oo ilaa 16 qodob gaaraya haddii aad si kooban noogu sheegtid sidee ku soo bilaabatay ama ku dhacay shirkaas isaga ah nuxurka iyo muhiimadda uu leeyahay safgaradka idin dhexmar adiga iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia muxuu yahay horta alxamdulilah ilaaha mahad iska leh inta badan marka madaxda adduunka aan hor fariisanayno oo inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yiraahdo amni security oo kaliya xaqiiqatan shirkan iyo safarkan oo prime ministerka Ethiopia Dr. Abiy oo ku yimid Soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal si loo xoojin lahaa isagoo ku dhisan ama ku base garaysan is-ixtiraam iskaashi iyo wada shaqayn in midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dal walba uu leeyahay taas waxay ahayd base-ka aasaaska wada hadalkeena horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo security aan ka hadli jirnay marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan u kobcin lahayn sidii dawladaha dariska ah Ethiopia iyo Kenya aan uga hadli lahayn isu socodka dhaqaalaha iyo socodka xorta ah ee bulshada waxaan aaminsanahay inaan taaganahay meel fiican hadiiba annaga laga damci karo annagoo dee isu haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dawladaha dariska iyo caalamka oo dee dagaalkii sokeeye iyo burburkii dagaalada nagu socda darteed in rajana laga qabo oo dawladuhu ay aaminsan yihiin Soomaaliya inay soo kabsatay ay cagaheeda ku istaagi rabto ama ku istaagtay oo lala sameyn karo ganacsi xiriir ganacsi lala sameyn karo marka waxaan isleeyahay waxay ahayd horumar prime ministerku safaradiisii marka dib u fiiriso uu ku mareeyay dawladaha dariska ah iyo meelo badanba inta badan wuxuu ka hadlayay mar walba wuxuu ka hadlayay sidii uu kor ugu qaadi lahaa fursadaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waddan walba kala hadlayay Suudaan wuxuu kala hadlay Djibouti ugu horeeyay wuxuu kala hadlay arrimaha dekedaha iyo ganacsiga Suudaan wuxuu kala hadlay arrimaha dekedaha iyo ganacsiga Kenya sidaas oo kale iyo waddamadii kale uu tagay kulligood annaga marka aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level Ethiopia aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iideysan karnaa Ethiopia maxay haysaa oo annaga u baahannahay annaga maxaan u baahannahay oo Ethiopia ay u baahan tahay xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku waji fiican oo u arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno iyaguna ay waxna tari karaan marka taas waxay keentay Soomaaliya waxaan offer garan karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin landlord aysan dekada lahayn maxaan annaga Soomaaliya aan dhaqaalahooda aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekado dekadahaasna
anagu dhaqaalo uma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisaan laakiin waxaa bilaabanaya markiiba haddii dekedahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 milyan oo Ethiopian oo aan dekada lahayn in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsato ah ay maal gashadaan maxaa yeelay meeshaas waxaa jooga consumers badan ayaa jooga annagu markaa cid alla ciddii maal gashanaysa dekedaheena afar kaliya ma xitaa waxaan jeclaan lahay inay ka bataan bacdama aan 3,300 oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer Africa inay noqoto xeebaheena ay noqdaan xeebaha markab kasta oo soo maraya aaga uu istaagi karo uu ka qaadan karo shidaal uu ka qaadan karo raashin uu ku nasan karo bacdama ilaa 60,000 ilaa 70,000 oo maraakiib ay maraan aaga ay maraan marka in annagu aan noqono ilaahina uu nagu abuuray meel strategic ah inaan noqono dal strategigiisa ka faa'iideysan kara oo uga faa'iideyn kara dariskooda iyaguna waxay hayaan population aad fara badan 100 milyan 100kaas milyanna waxaa ku xiga South Sudan iyada naftigeeda ilaa Uganda dadkeena waxaa la og yahay inay u tagaan ganacsi iyo baayac mushtar u tagaan ilaa Koonfur Africa ilaa West Africa marka haddii aan u soo dhaweynay opportunity iyagoo dalkoodii jooga aan u keenay wax alla wixii ay uga baahnaayeen si ay dhaqaalaheena Soomaaliya dhaqaalaha ganacsadeena ay u kobocdo inaan u keeno fursadaas runtii waa mas'uuliyad haddana saaran shalayna saarnayd oo aan ka gaabinay dadkan soo socda oo na bedeli doonana aan u fudeyn iyo jiilka soo socdaba aan u fudeyn doono si ay noloshooda iyo mustaqbalkooda wax uga bedesho arintaas mudan madaxweyne qodobka ugu hadalhaynta badan arinta heshiiska ama heshiiskan aad adigii ra'iisul wasaare AP aad isla gaarteen ee ku saabsan dekadaha ayaa dood badan dhaliyay oo dad badan ay hadal hayaan oo ay leeyihiin dawladdu dekadihii ugu muhiimsanaa dekado ayay siinaysaa Ethiopia arintaasna ma qabato dadka Soomaaliyeed marka dawladdu dekadihii u gacan gelinaysaa wadan rival nala ahay ama duruufo kala duwan xaalado kala duwan isla soo marnay marka arintaas iyada maxaad uga jawaabaysaa xaqiiqatan horena u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiye ma laha dekaduhuna Soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana ma laha Ethiopiana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan Asia waxay ka imaan karaan Khaliijka waxay ka imaan karaan Mareykanka waxay ka imaan karaan Afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada Soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamaya waxaa kula tartamaya maxaan ku raahdaa Mombasa yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaysa Port Sudan yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaya anu tartan ma arko Djibouti dad waalehna weeye intaasoo idil yaa tartan kugula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dawladooda ee kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira Soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan Afrika iyo Asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn Soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo Soomaaliya loogu sameyn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragtidaasna waxaa ku xiga farsamadaas waxaa ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinaya xagee laga dhisaya wixii jidad noocee ah yaa la sameyn matarin yaa la sameyn doonaa ma garat oo u kala goosha Afrika oo dhan
waxaa studigaas la sameynaya ama farsamadaas ay ku jira dhaqaale intee la eg intee ballaceedu leegyahay waxaasoo idil kadib yaa waxaa la gaaraya heshiis agreement wax la yidhaahdo agreementigaasna waxaa la horkeenaya baarlamaankaa sharciyeenaya marka waa process dheer laakiin waxaa la isku dhaafay vision wax la yidhaahdo aragti dheer marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dowladdana waxay tahay sidii Soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn dalkeenu wuxuu ku yaalaa meel ilaahayna siiyey oo strategic ah dalkeenu wuxuu leeyahay khayraad ayuu leeyahay shidaal ayuu leeyahay wuxuu leeyahay kalluun ayuu leeyahay macdan ayuu leeyahay xooluu leeyahay beeruu leeyahay macnaheedu waxay tahay cid walba oo wax gashan karta waa inay soo marto albaabkaasna wuxuu yahay dowladda federaalka ah weeye kabacdina aan aragno waxa ay hayaan laga munaaqishoodo heshiis la gaaro sharci loo bedelo ma garat markaasi intaas markaas ku soo waxay ku soo dhamaanaysaa annaga waxaan qaadanaynaa wixii danta noogu jirto aan qaadanaynaa wadaniyadu ma aha dagaal iyo qori iyo wax iska celin maaha wadaniyadu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqayso sidii aad u kubcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartanto caalamka taas way patriotismku mudan madaxweyne dhawaan waxaad booqatay waddanka Kenya oo aad hal maalin booqasho ah ku tagtay ka horna ay jirtay booqasho state visit ama booqasho rasmi aad ku tagtay waddanka Kenya sanadkii tagay adoo markaas xafiiska ku cusbay booqashadaadan maxay diiradda saaraysaa oo ay ku saabsaneen booqashadeedu waxay ahayd hal maalin oo xaqiiqatan degdeg ah bay ahayd arrintaasina waxay ahayd arrin ku wajahan arrintii ahayd derbiga laga dhisay balad xaawo oo buuq ah oo ka dhacay alxamdulilah markii la bilaabay dhismihii waa xiriirnay madaxweynaha uhuru waxaan ku heshiinay in la joojiyo inta aniga isaga iska arkayno heshiiskii aan galnay oo hadda markii aan aragnay wuxuu ahaa in loo saaro guddigaasi ay ka shaqeeyaan daraasadna ay ka sameeyaan oo labada dhinac ah muddo 6 bilood daraasad ka sameeyaan daraasadaasna ay noo soo gudbiyaan sidii aan ka yeeli lahayn shacabkeenna Soomaaliyeed oo deegaankaas degan iyo wixii arrintaasi aan ka qaban lahayn marka tan waxa ka horeeya guddi in la sameeyo guddigaasna ay noo soo gudbiyaan wixii ay arkeen mudan madaxweyne arrinta isla balad xaawo aad hadda ka hadlaysay dad badan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay oo bulshada qaarkood aad u muuqanaya inay kicinayaan oo ay leeyihiin dhulkii la qaadanaya maxaad macluumaad ah oo arrintaas la xiriira oo aan ka ahayn in guddiga loo saaray oo aad bulshada la wadaagi kartaa oo arrintaas la xiriira marka hore horta shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay aamina dawladdiina dawladda aamina dawlad yaa doorateen oo idin matalaysa oo danihiina ka shaqeynaysa annagana waa naga go'an tahay inta aan joogno in aan danaha ummadda Soomaaliyeed aan wax walba ka hormarino marka waa xaqiiq dad dana siyaasadeed leh iyo shabaabka naftigooda yaa wax alla wixii dhaca ama wax alla wixii laga sameyn karo ka sameeya dood waalan oo dadka lagu jahwareerinayo lagu khaldaayo marka arrintaasi guddiga waaya mudan madaxweyne arrinta ku saabsan Kenya intaanan ka bixin waxaa jiray muran ka naga dhaxeeya dalka Kenya oo la xiriira badda Soomaaliya marka oo hor yaala maxkamadda caalamiga ah arrintaas maxaa ka cusub oo hadda ka socda arrintaasi waa arrin annaga horteena bilaabatay haddana socota oo maxkamadda Hague maxkamadda caalamiga ah ee hortaala maantana dacwadeennii qayb ka mid ah loo gudbiyey taasna waxa weeye waa wax hortaala garsoorayaal labada dhinac dhageysanaya doodooda annagu waxaa noo qaabilsan loo yaro qareenno
waaweyn yaa qaabilsan oo dee dacwadaas iyo doodaas hordhigaya taasaan u daynaya insha allah wixii ka soo baxana waa arkaynaa. mudan madaxweyne intii aad joogtay Kenya oo waxaad ka qayb gashay munaasabad iscafis xiriir la lahayd oo siyaasiyiin badan oo Kenyan ah ay isku yimaadeen haba ugu weynaado Raila Odinga iyo madaxweynaha oo tartan adag doorashada ku dhaxmaray Soomaaliya waxa ka jiray khilaaf waqti dheer soo jiray dad badan siyaasad ahaan ku dhaliila hogaankaaga dhaliila siyaasiyiin ah oo aan qarsan ama la gabada intaba madaxweynaha Kenya wuxuu mar kugula taliyay inaad kala Soomaaliduna ay sidan oo kale ay sameeyaan ma ku qorshaysan tahay inaad iyadoo Somali context laga dhigayo aad siyaasiyiinta Soomaalida ah ka aragtida duwan ama qaba fikirro kale inaad is aragtiin oo aad si hoose iyo si koraba bulshada Soomaaliyeed aad wada hadashiin oo aad isu soo dhawaatiin? su'aal wanaagsan weeye annaga qaabkooda iyo qaabkeena waa ka kala yar duwannahay iyagu electionkoodu wuxuu gaaray inaysan is aqoonsan oo caalamku ay soo dhex galaan oo mar xitaa ay gaaraan laba madaxweyne in meesha looga dhawaaqo oo ilaa hadda markii ugu dambeysay xaaladooda ay aad u cakarneed annagu keenu waa ka duwanaayo dee electionkeena election cadow banaanka yaallo ahaa markii uu dhammaadayna waa tii annagu gacmahaas qabsannay oo caalamku ay runtii arkeen oo wadamo badan oo filayay Soomaaliya inaan aad u dambeeyno qiray inaan taaganahay meel aad u fiican oo waliba aan ka horeyno badankooda aan ka horeyno electionkeenu saas ku dhamaaday wixii ka dambeeyay electionka 2 bilood 3 bilood iyadoo la joogo dee waxaa bilowday wixii dhaqanka u ahaa Soomaaliya waana wax iska normal ah wax iska caadi ah weeye in Kenya lagu shiro oo la yiraahdo xukuumadda la ridaya oo mooshin baa laga keenaya waxay iska ahayd wax iska dhaqan ah oo iyadoo la sugayo aniga iyo prime ministerka inaan isqabanno muddo yar dhexdeeda haddana dawlad kale la dhiso oo haddana dawlad kale la dhiso marka alxamdulillah waxaan kuu sheegayaa dawladdu waa very stable waa u baahannahay dad wax naga sheega mucaarad waa u baahannahay iyagoo looga baahan naftooda inay noqdaan mucaarad wax dhisa haddii looga barto iyaga naftigooda dad iska qayliya oo dadku xitaa credibility-ga ka lumaya sumcaddana waa ka halaabaysaa marka waxa weeye wax hadda aan oran karo caqabado ah oo dawladda dhexdeeda haysta ma jiro saasay tahayna waa ku dadaalaynaa inaan raadino cid alla ciddii aan qancin karno aan ku qancino inay dawladnimada nagala shaqeeyaan dalkeenu wuxuu maraya xaalad aad iyo aad u adag shabaab baan la dagaalaynaa dhaqaalaheenu weli ma soo kaban dalkii waa kala maqan yahay marka cid walba oo runtii aan ku tuhmeyno mas-uuliyad iyo aan ku tuhmeyno maslaxad waa ku khasbannahay inaan raadino oo aan la shaqeyno dowlad goboleedyada tii ugu dambeysay waxay ahayd baydhabo cid walba oo runtii aan ku tuhmeyno ama qaba grievance qaba ama tabasho qaba waxaan isku dayaynaa inaan raadino iyagana waxaan ka rajeynayaa inay noqdaan dad wadaniyiin ah oo dalka u danqanaya oo mas-uuliyad ku jirta. waay mudan madaxweyne tukaraq deegaanka la yiraahdo waxaa dagaal ku dhex maray ciidamada isku hor fadhiyaan Somaliland iyo Puntland dawladdu door noocee ah ayay ka qaadatay si loo baajiyo dhiig kale inuu sii daato? waxa weeye runtii waa nasiib darro waqtiga hadda aan ku jirno 28 sano ku dhowaad in weli dalkii uu dhiig bilaa macno ah oo runtii aan wanaagsanayn iyo conflict iyo colaad ay jirto waa wax runtii aad iyo aad looga xumaado waa arrintooda waa dhex galay waana la hadlaa si joogtaan la hadlaa waana isku dayaynaan runtii wada hadalsiiyo marmar waa ku guulaystay in xabad joojin la sameeyo in wax walba lagu xaliyo wada hadal iyo isfaham labaduba waa soo dhoweeyeen laakiin nasiib darro xabad joojintii iyo wada hadalkii ma sii shaqaynin oo hadda waxaan ognahay inay dad Soomaaliyeed oo walaalo ah halkaasi ay ku naf waayeen kuwa badanna ay dhaawac hadda yihiin
waxaan ka codsanayaa ama usoo jeedinayaa ama aan ku baaqaya in ay wada hadlaan oo wax walba lagu xaliyo wada hadal iyo isfaham si loo baajiyo dadkaas waalaha oo muslimiinta dhigooda. mudane madaxweyne dhowaan waxaad waqti badan ku qaadatay wasaaradda gaashaandhigga oo aad si gaar ah ula nooleyd oo maalmo badan la joogtay ciidamada xoogga. muxuu ahaa ujeedka aad ka lahayd arrintaas iyada ah? ujeedka wuxuu ahaa runtii priority-geena ama muhiimaddeena koowaad waa amniga iyo sidii shabaab dalkaan uga qaban lahayn, dalkaana nabad aan ugu soo dabaali lahayn. taasna waxaa keeni kara waxay tahay ciidan adag oo discibliin fiican leh, aqoontiisu dhisan tahay, tababar fiican leh, qalab fiicanna haysta ama agab fiican haysta. si aan taasi aan u hubsado, aan u xaqiiqsado, inaan meesha tago aan ogaado xaaladday ku nool yihiin iyo maxaa yeele waxaan ku dhex jirnaa waktigii isdiyaarinta iyo ishabeynta ama u diyaar garowga howlgallada aan doonayno inaan bilaawno hadduu eebbe yidhaahdo. aan ogaado siday ay u diyaarsan yihiin ciidankeenna tiro ahaan iyo tayo ahaanba. waxaa ii soo baxday markaa su-aashaada su-aal fiican. waxaa ii soo baxday ciidan runtii geesiyiina oo diyaar waa dalkooda inay u dhintaan, laakiin maamulka uu ka yara qariban yahay. taasna runtii intaan meesha joogaan waxaan ka shaqeynay sidii aan maamulka u sixi lahayn. haddana maamulkaas sixidiisu waa wax socda, wax hal mar ah maaha. si aan tayada ciidanka aan kor ugu qaadno, ciidanka noo diyaar garaysan oo haddii aan doonayno howlgal inaan galnana aan xaqiiqsano. kuwa howlgabka noqon kara ama kuwa dhaawaca ahna waxaa jira hadda sharci xaqsiinta ah oo hor yaalla baarlamaanka oo 5 bilood 6 bilood ka hor aan horgeynay. sharcigaasi waxaan rajaynaynaa in la ansixiyo oo uu dhaqan galo si dadka howlgabka ah, cimriga ah ama dadka dhaawaca ah iyo agoonta in aan dhankaas u weecinno. ciidanka markaa shaqayn kara oo xayiga ah oo aan u baahannahay inaan howlgelino markaasi aan ku talagalno. ma ku laabanaysaa wasaaradda gaashaandhigga mar kale? aad iyo aad waan ku noqon doonaa insha allah. hawshii weli way socotaa, waa ku noqonaynaa insha allah dulahi. mudane madaxweyne, maxkamadda sare ee waddanka ayaa berdhoweed isbeddel ka jiray oo la magacaabay guddoomiye maxkamad sare. waxaa kuugu jiray ballanqaadyadaadii inaad garsoorka shaqo badan ka qaban doontid. ilaa hadda maxaad dhihi kartaa waa laga qabtay dhinaca garsoorka? haddii aan su-aal kale ku darana, guddiga adeega garsoorka iyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ayaa dad badan wax isweydiinayaan goorta la dhisayo oo ay functional noqon doonaan. waa jeclaan lahayn inaan horay aan ugu dhaqaaqno, laakiin waxaan raadinaynay oo aan inaan u taabagalno inaan ogaano xaqiiqda dhabta ah ee cadaaladda hay-adda maxaan ku rahdaa garsoorka. meesha waxa ka jira, culays ka jira, cabashada dadka ay qabaan, ma wax la iska sheegayaa mise waa wax dhaba? iyada nafteeda markaa qofka bedelayso ama qof cusub keenayso meel, waa inaad cadaalad u samayso, aada hubsato xaqiiqda dadka cabanaya ma dad ku guul dareystay garsoorka miya, mise waxa weeye cabashadu waa cabasho dhab ah. runtii waxay nagu qaadatay daraasad dheer iyo nagu qaadatay inaan ogaano khaldaadka iyo culayska iyo dhibka ka jira meeshaas. waxaa noo soo baxday inaan deg deg wax uga qabanno. qaybtii ugu horreysay waa sameynay oo dee waa magacawnay. haddana waxaan ka shaqeynaynaa garsoorayaasha hadda jooga. yaa loo baahan yahay, yaa shaqadiisa qabsado oo cabasho dadku aysan ka qabin, yaa cabashadooda badan tahay. iyada naftigeeda waxaa laga rabaa guddoomiyaha maxkamadda sare inuu u gudagalo garsoorayaasha naftooda yaa shaqeeyay yaana shaqayn. adeega garsoorka waa ku tala jirnaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. sida ugu dhaqsiyaha badan yaan 9 xubnood oo golaha adeega garsoorka aan isugu aadin doonaa insha allah. mudan madaxweyne, al-shabaab waxaad
marar hore ugu baaqday inay hub ka dhigaan inay isu soo dhiibaan gaar ahaan si gaara waxaad uga hadashay dhalinyarada la marin habaabiye iyagu aan hogaamada sare ka ahayn al-shabaab laakiin dagaalka loo adeegsado baaqaagaas cafiskun uu ku jiray ciddii isu soo dhiibta ma loo dhaga nuglaaday maxaase natiijo ah oo ka soo baxay mar walba waan leenahay mar walba waxaan leenahay qolooyinkan shabaabka ah intooda badan waxaan aaminsanahay in la khalday oo la marin habaabiyey dad Soomaaliyeed weeye waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxay leynayaan ama ay dilayaan ama isku qarxinayaan waa shacabkoodii walaalahood hooyooyinkood weeye mar walbana u sheegnaa inay ka waantoobaan ka soo baxaan diinta islaamka ma qabto qof bini aadan in la dilo ma qabto in la isdilo oo qofku isqarxiyo ma qabto diin islaam ma aha caqiida saxa ma aha mar walba waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan oo ay ka soo noqdaan qaybna ka noqdaan runtii dhismaha dalkooda iyo horumarkooda waa soo dhaweynaynaa waxaan siinaynaa rehabilitation wax la yiraahdaan siinaynaa degaan yaan siinaynaa kii waxbarasho u baahan inaan waxbarasho u raadino ama aan siino waxbarasho kii shaqo u baahan inaan u diyaarino oo aan u tababarno shaqada ay qaban karaan marka waxaan aaminsanahay haddii dhaqdhaqaaqyada iyo howlgallada aan bilaawno hadduu ilaa yiraahdo inaan arki doonno isbeddel dhankooda ku dhaca iyo kuwo badanoo ka yimaada oo ka waantooba oo hub ka dhiga oo isu soo dhiiba insha Allah hadduu ilaa yiraahdo mudan madaxweyne waxaa lagugu xantaa inaad marka ay waddanka crisis ka jiraan ama qadiyado u baahan in madaxweynuhu uu ka hadlo ama uu codkiisa la maqlo ay ka jiraan waddanka inaad ka aamusto oo aad waqti dheer ay qaadato in warkaaga la maqlo ama aad bulshada ka qanciso arrin u baahan inaad adigu ka hadasho ilaa heer dadku ay isweydiiyaan madaxweynuhu muu hadlo marka maxaad uga jawaabaysaa fahamka noocaas ee bulshada dhexdeeda ka jira madaxweynuhu waxba kama bilowdaan way isku dhamaadaan madaxweynuhu ma hor ordi karo shaqada maxaa yeelay haddii isagu uu hor ordo oo wax laabaan xaggee lagu noqonaya macnaheedu waxay tahay madaxweynaha wax uu leeyahay oo meesha wax ka bilowdaan waxay tahay magacaabista prime ministerka macnaheedu waxay tahay prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha yaa mas'uuliyadda xukuumadda iska leh prime ministerku waxaa la shaqeeya wasiiro oo loo baahan yahay shaqada naftigeeda inuu u delegate gareeyo oo iyagu ay hawsha ay ka xigsadaan wasiiradana waxaa laga rabaa agaasimayaasha guud inay ka xigsadaan ilaa meesha ugu hooseysa ee madaxa qaybta uu hawsha ay ka bilaabato meesha hawsha ay ka bilaabato marka waa dhaqan cusub aan horey aanan dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya aan horey looga baran laakiin waa sida saxa ah madaxweynuhu waa meesha ugu dambaysa oo la tagayo markeedu macnaheedu waxay tahay inaan aruuriyo xog inaan xaqiiqada ogaado meesha wax ka khaldan yihiin iyo meesha loo baahan yahay in wax laga saxo talooyin badanna aan geliyo kadib iyadoo la diyaarsan yahay anigu aan xalkii keeno marka alxamdulilah ra'iisul wasaare wanaagsan oo aan ku kalsoonahay ayaa shaqeeya isagana dee wuxuu keenay maxaan ku raahdaa wasiiro qof walba waxaa laga rabaa shaqadiisa ee loo idmaday ee loo xil saaray oo mas-uuliyadda ka saaran inay gutaan mudan madaxweyne ugu dambeyntii 2020 ama 2021 xilligaas oo ku beegan marka ay tahay in dalka doorashooyin ka dhacaan oo maaragtay dadku doorasho cod iyo qof ah ay aadaan maxaad filaysaa ama xaalad noocee ah ayaad saadaalinaysaa inuu dalku ku sugnaan doono marka shaqooyinkan hadda aad sheegtay la fuliyo ama ay hirgalaan shaqooyinka hadda aan bilownay runtii waqti fiican yaan bilownay oo aan wax kasta aan qorsheyn karno dadka aan la tashan karno aqoon-yahanada aan ka qayb gelin karno hawshan hadday noqoto qaabka electionka u dhici doono dhammaystirka dastuurka marka waxaan aaminsanahay waqtiga hadda aan bilownay sidaa aan u soconno haddii aan ku wadno inaan ku tegeyno hadduu eebbe yiraahdo doorasho qof iyo codkiisa ah qof iyo cod ah shacabka Soomaaliyeed aan dib ugu celin doono talada mar dambana iyagu aysan sheegan karin in wax laga hadlayay maxaa yeelay iyagaa iskala go'aankii
iyagaa dooranaya qofka ay rabaan iyagaa keenaya leadershipka iyo nooca ay rabaan marka in aan gaarsiino awooddii shacabka sida caalamka inta badan ay yeelaan ay iyagu keenaan marka qofkay isleeyihiin waa qof soomaalinimadiisu waddanimadiisu fiican tahay waa qof aamin ah oo ammaanada ummadda loogu dhiibo adkeeya qof shaqadii yaqaana qof khibraddii leh iyagaa laga rabaa inay iyagu doortaan qofka ay rabaan marka mas-uuliyadana saaran waxay tahay hadda inaan keenno qaabka ugu fiican hadduu ilaah yidhaahdo marka qolooyinka farsamada iyo technical teamka ay ka shaqeeyaan oo ay la tashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada inay ay soo bandhigi doonaan sida ugu fiican yaan oran iyaga kaliya meesha waxaa jira guddi madax bannaan oo doorashooyinkaa jira oo iyagu naftigoodu iyagaa iska leh hawshaan oo waa madax bannaan yihiin inaan annaga aan fekerkii keenno annagoo la tashanayna iyagoo la tashanaya guddigaasi farsamada iyagoo la tashanaya guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo baarlamaanka iyagoo la tashanaya in la keeno qaabka ugu fiican oo ugu habboon oo soomaalidu ay ku geli karaan doorasho ama election ku geli karaan mudan madaxweyne aad ayaad ugu mahadsan tahay waktigaaga waa kaaga mahad celinaynaa waraysigan aadna siisay guud ahaan daawadayaal kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo waraysigan aanu la yeelanaynay mudan madaxweyne aad iyo aad ugu mahadsan tahay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu